xagee laga fulinayaa sidee loo fulinayaa sidee loo qaybiyay inay muuqato way miisaaniyada ka muuqato gobolada iyo degmooyinka iyo deegaanada laga fulinayo iyo sida loo qaybiyay inay ka muuqato way qodobka koowaad 14.4 milyan waa inay caddahay mashaariic kaliya in la yiraahdo hadhowna meel ay ka baxday la waayo qodobkaasi sax ma ah waa in la faahfaahiyaa lana caddeeyaa degmo walba iyo gobol walba oo laga fulinayo inay caddahay waa si dhabana loo qaybiyo beydka shanaad deeqaha oo maxaan ku yiraahdaa wadamada kale inooga yimid saddex wadan baa hadda halkan ku qoran Turkiga Qatar iyo Saudi Arabia waxaan soo jeedin lahaa halkaasna in faahfaahintu inta ka badato waxaa jira dareen ah in dakhliga ama deeqaha inooga yimidna inta ka badan yahay marka faahfaahin inta ka badan baan u baahnaan lahayn warar badan oo sheegaya in dakhliyada inaga soo galay intaan ka badan yihiin ayaa jira taana waxaan u baahanahay in laga bogsiyo beydka lixaad qodobka lixaad guddiga waxa uu soo jeedinayaa in wasaaradda maaliyadda dardar geliso howlaha dakhli ururinta maadaama saadaasha dakhli ururinta meelaha qaar ay muuqato hoos u dhac sababaya sida isgaarsiinta qodobkaas ah isgaarsiintii 4.8 milyan ay sanadii hore ka soo xaroon jirtay hadda 3.5 milyan inay ka soo xarooto ayadoo waliba sharciga iyo isgaarsiinta la ansixiyay qof kasta oo Soomaaliyeed inta badan ama ha yaraado ama ha weynaade oo 3-4 telefoon iyo ka badan isticmaalay taa waxaan u baahanahay meelaha mar walba mugdigu ku jiray ka mid tahay mugdigeedina uu sii batay 4.8 sanadka hore haday ahayd inay hadda 3.5 noqoto wax la qaadan kara ma guddiguna waa ku amaanaya inuu banaanka soo dhigay isla beydka lixaad kharashaadka miisaaniyadda qodobka saddexaad 34 milyan oo dollar oo aan goluhu ku darin miisaaniyaddii hore ayaa la isticmaalay sida guddiga warbixintiisa ku jirta 34 milyan oo miisaaniyaddii hore ku jirin ayaa la isticmaalay xagee ka timid sidee loo isticmaalay macnaheedu waxa waaye guddigu ma sheegin faahfaahin kale laakiin lacagtaasi waxay u egtahay lacag la lunsaday 34 milyan meeshay ka timid miisaaniyaddana kuma jirin la yiri waana la isticmaalay xagee ka timid markii hore xageesa loo isticmaalay in la caddeeyo waay aada u mahadsantiin qodobka kale beydka sagaalaad annaga waxaan ka hadlayno waa sixitaan inaan wixii khaldanna sheegno wixii faahfaahin u baahanna loo faahfaahiyo beydka sagaalaad wasaaraddu hadday si fiican ula socoto iyo xildhibaanadu qodobka koowaad ee talooyinka iyo soo jeedimo meesha ah guddigu waxa uu marar badan ku soo celceliyay inaan qaraarada baarlamaanka la fulinin wasaaraddiina waa fadhidaa marka qaraarada baarlamaanku hadday fuli waayaan dee waxa meesha laga wada shaqayn karaa aad buu u koobnaanaya marka waxaan soo jeedinaynaa qaraarada baarlamaanku inay noqdaan kuwo fula beydka tobnaad qodobka saddexaad xildhibaanadii hore miisaaniyaddoodii iyo qarashaadkoodii waxaa la rabaa inay miisaaniyadda si cad ugu qeexan tahay marar badanna waa ku celcelinay mooshin ama soo jeedin xildhibaanadu saxiixeenna guddoomiya waa haysaa marar badanna waa la sheegay qaraaradii horena waa ku jirtay mar walbana waa la iska soo indhatiraya marka lacagtaas in meel la saaro waa loo baahan yahay isla qodobka afraad beydka tobnaad golaha baarlamaanku mar hore doodiisii wuxuu ku daray ciidamada in lacag loo kordhiyo annaga lacag badan aan sheegnay maalintii hore laakiin guddiga iyo meelo badan markii la isku laalaabtay waxaa la go'aamiyey $50 in loogu daro haddana waa laga soo tegey marka ciidamada waxa wax loogu diidan yahay waxay noqonaysaa wax in la isweydiiyo loo baahan yahay waxaan codsanaynaa in lagu soo daro $50 oo miisaaniyadda ku jirin ayadoo awalba yar
إلا أنسحيا وأتكان تونتا كنتم قاعد دولار هلو صدر ماشي وزارة دوكا كينيسو ماشي كشريسو أنا قلت المامان بحنا معلمي هوري لكن يجوا طالع إسلا قلب كالشنات وقلب مهمة بقى طمناد وقلب كالشنات ديما هي هوري دل كان ماشي اللي قد دعوه ديما هوري دل كان ماشي اللي قد دعوه عبد القاسم مدعويني هوري مدعوين عبد الله يوسف الله نحرسه يا انت كده بريسي هل دينا دل كان كوريكت وعليه كوسي درسما تي عبد القاسم بحيي عبد الله يوسف وابحيي شيخ شريف وابحيي إسلا أيدي حسن شيخ وابحيي هذا روا على جرب الدولة وأنا ماشي دل كان لبعضه أقول بدل كذا سعود ديما هوري وإن للشيعة لقيها لعديا للسجلاب ملا دقا قلب كاسر وسو جيدين قلب كاللحاد إسلا بقى طبنات سو جيدين تقول دقان تأكيدين يا أم حوجين يا أو سفاردها إن أكاون لعقته ضلوق شو وعلوجيا وزارة المالية لعقته وسفاردها وي بحساب لكن سفاردها مقعدو سفير والباسقو وريقي سنة أو باور هاي سنة أو مشهر قادرين أو أن محنكو هذا ميلو دقاقي كريتشرين وسفاردي نحتاجية أو كريدي اللي ولي عصرنا مركا إن سو جيدين تأكينو وجودك أن حوجينو سو جيدين تسوا سفير والبا وحلو قندي ميزانية وجرا بيشو مركا نماتين أكون كيسو وقول عادي يعني ميركل اللي حما ما صدق بدون